Asalaamu calaykum saaxiibayaal, waa saaxiibkiin oo jaa muuqaal cusub. Muuqaalkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan jeclaystay inaan idinla soo wadaago jaamacadda ku tahay Dublin University oo ku taala mid ka mid ah magaalooyinka dalka Turkiga ee lagu magacaabo Kutahaya. Iminka ayaan bixi doonaa, waan diyaarsanahay, let's go. Hadda kabaha ayaan xiran doonaa, iyaga bis ayaa iga dhiman, kadibna toos ayaan u bixi doonaa. Sida ujeediinba hadda ayaan bixi doonaa, meesha xaafadda aan deganahay waa sidan. Runtii hadda waa socdaa. Jaamacaddan waxaa la aasaasay 1992gii. Runtii ardayda dhigatan waxaa lagu qiyaasaa 50k inay kor u dhaafayaan ilaa 50,000 oo kale. Marka hadda jaamacadda ayaan u socdaa. Sida dareemaysiin runtii wax bas la yiraahdo maraaci dooni ama bas jaamacadda kuma aadi dooni, sababtoo ah jaamacadda aad ayay ugu dhowdahay. Aniga xaafadeyda waxay ku taalaa meel ka baxsan magaalada. Jaamacadaha dowladda intooda badan runtii magaalada lagama dhex dhiso, waayo bad aad u weyn ayay ku fadhiyaan, micnaha aad iyo aad ayay u weyn tahay. Marka waxaa laga dhisaa magaalada meel ka baxsan. Sidaas darteed ani hadda waxaa deganahay magaalka meel ka baxsan. Bas taas micnaheed ma bas inaan heleynin, bas uu jira xaafadeena ka baxo oo jaamacadda si toos u gala, balse intaas sugayo waqti igu qaadanayso ayaan diidayaa. waa u lugaan karaa oo aad ayay igu dhowdahayba, balse haddaan magaalka deganaan lahaa qasab aad ayay iga fogaan lahayd jaamacadda, basna waa soo raaci lahaa. Midkaan waa masjidka xaafadeena ku yaalo, maasha Allah, waa salaada midkaan ku tukano. Sida ujeediinba basaskaas ayaa ka shaqeeya magaaladan. DBU magacan waxaa qoray arday. Maalin anoo maraya arkay arday barad qaybta artiska ayaa magacaas meesha ku buufiyey, iyaga ayaa ku ciyaaraya. Meeshaan geedaha tirada badan ku dhex yaalaan waa jaamacadda dhexdeeda, balse iridda laga gala xagga ayay ku taalaa. Iminka ayaan gali doonaa, waa kana iridda laga gala jaamacadda. Qaybtaas oo sanduuqaas cadaanka camal meeshaas iridda leh waxaa fadhiyo checking waaye, qof security ayaa fadhiyo. Meeshaan arday markuu galaayo qofkaas ayuu kaarkiisa tusayaa, kadib ayuu meesha galayaa. Balse inta badan ma la isku mashquulo oo qof keen kaartus iyo waxaas ma dhaceyso. Maalmihi aan cusbaa ma cabsan jirin, ma ogi, markaas waa tusi jir kaarkeyga mar walbo. Laakiin hadda ma tusiba, waa la qabsaday, waa iska soo maraale. Hadda waxaan imaaday qaybta baaskiilada laga qaato oo micnaha jaamacadda aad ayay dhexdeeda u kala fog tahay. Haddaa qiyaas cabirkeeda degmo dhan ay ka weyn tahay, xataa si u weyn tahay. Marka baaskiil meel laga qaataa jirto, baaskiilkaas iska soo qaataa. Marka jaamacadda irideeda afkeeda hor soo galo, waxaan ku tagaa qaybta oo aniga waxa ku barto luqadda tuumarka ayaa loo yaqaanaa. Qaybtaas ayaan ku tagaa baaskiilka si aan waqti fudud ama waqti kooban ugu tagay intaa lugeyn lahaa. Hadda waxaan hayaa wadadii qaybta tuumarka aan ku aadi lahaa, waan socdaa runtii. Dhismahan ujeediin waa dhismaha ay dhahaan Rector Lugu, ma dhahaan Mudur Lugu camal. Waa xafiiska uu ku yaalo ninka jaamacaddan, ninka uu xafiiska ugu sareeya ka fadhiyo. Waa meesha xafiiskiisa uu ku yaalo kale, ama ninka haysta jaamacadda meesha xafiiskiisa uu ku yaalo. Sugbal gaarigan dilni linkeyga ka gale. Hadda linkan bluega soo galo kale anaa ugu xaq leh, waayo baaskiil ayaa ku sawiran. Waxaa lagu talgalay ardayda baaskiilka wadata in ay iyaga maraan, markaasoo kale gaari kuguma soo gali karo. Sida ujeediin calaamadan Toomaar ayaa ku qoran. Waxay ku sheegaysaa wadadii Toomarka loo aaday waatana. Toomarna hore idinku sheegay waxa laga wado waa meesha luqadda lagu barto. Anna waxa u socda meesha luqadda lagu barto. Marka haddii aad cusub tahay, calaamadahaas ka faa'iideyso waa ay ku caawin doonaan.
hadda meeshan ayaa kasoo leexday sida u socdo automatic waxaan arki doonaa towmarka ama meesha luuqada lagu dhigto. sida ujeedinba waa kana towmarkii finally waan imaanay meesha luuqada aan ku baranayay. horta ka cusub tahay waxaa ku qasban tahay inaad luuqada dalka aad baratid kadib shahaado aad qaadatid kadib ayaa jaamacad bilaabeysaa. hadda waa kana irid lay galay meeshaas hadda waxaa ku qoran hadda akhrisin towmar oo kale waa meesha luuqada lagu barto, balse iridan runtii ma rabo. waxaan kusoo baakimin doonaa baaskiilka irida kale. iridaas aan jeclahay waayo waa irida hadhow aan ka bixi doono galaaskii u dhow, marka baaskiilka xagga ayaa kusoo baakiminayaa. waa kana irida kale waa imaaday sidan ayaa u taala baaskiilkayga hadda ku baakintay. hadhow iridan ayaa kasoo bixi rabaa, marka iridan ayaan ka galayaa. hadda baaskiilkaygana meeshaas ayaan iska dhigtay. meeshaan hadda waa musqulaha ama meelaha weji dhaqo oo kale. marka wax sameysanaysid ama arabtid inaad ishabeysid meelahan oo kale ayaa imaaneysaa. kadibna hadda wejiga ayaa iska dhaqayaa sababtoo ah aad ayaan waxyar wejiga kasoo dhiiday, kuleel ayaa igu furan. wejiga ayaan iska dhaqayaa fasalka anoo waxaan tagayaa faxfax ama qabow dareemayo. marka waa kaasaa hadda galaasyada lagu wada jiraa. waan soo daahay waxyar, inta badan xiisada lagu wada jiraa. dib ayaan u soo galaaska sidan ayuu u yaalaa. macalimadda hadda way maqan tahay, weli soo ma galin, waa break kadib ayaan soo galay galaaska. macalimadda meesha ee fadhisana waa kana, kombyuutarkeedana waa kaasaa. marka liiska magaca liiska yeeriyana waa kaasaa. marka hadda xiisada waa inoo bilaawatay gaas. macalimadda magaciinta ayay yeerinaysaa, qofka maqan qofka jooga. hadda sida ujeedin break ayaa loo soo wada baxay ardayda dhammaan. markaan oo kale dadka meel ay iska aadayaan, kuwa maqaayadaha waaweynka jaamacadda ay leedahay aadayaan, kuwana meesha hadda ani u socdo kale ayay wax ka cunayaan. waa cafeteria iska yar oo meeshaan luuqada lagu barto ku dhex furan. ama waxaa jira maqaayado aad u waaweyn oo jaamacadda ay leedahay oo wax yar kugu jiro adiga 3 daqiiqo ama jaamacadda dhexdeeda ku yaalaan. haddana sida hadda idin sheegay jaamacadda aad ayay u weyn tahay. marka jaamacadda geeskeeda kale ku yaalaan. intaa lugeyn lahaa intaa wax yariis iska gadanaya rooti ama biyo kale. marka meeshaan waxaa yaalo calamada inta arday meesha kasoo wada jeedaan, calamadooda wadamada meesha kasoo wada jeedaan. runtii calamo aad u tiro badan ayaa yaala. Soomaaliyan way ku jirtaa. hal mar istaaga calankeyga ku faana Soomaali waaye, wadankeyga amana Soomaali waaye, Soomaali waaye, Soomaali waaye, Soomaali. wow guys, bahalkaas ayaa hal mar idin soo tusaa. hoos ayaan u degayaa. bahalkaas dhismahan waa dhismaha qaabkan hadda meesha ku dhex jiro, qaabkay u dhisan tahay dhan koraa ka arkaysaa. miyaaradan dhexdeeda la geliyey waa geesaheeda. dhismaha aan ku dhex jiro qaabku u dhisan yahay waa sidan hadda totally. inta geesaha u bixi lahaa banaanka aadi lahaa waxaan dhan inta tus lahaa kan ayaa idinkaaga filanbo. haddana guys nawada waa idin soo wareejin doonaa waxyar. waxaa kaloo idin soo tusi doonaa dhismaheena, dhismo ku dhagan oo asna lagu barto luuqadaha internationalka ah.
noqonaysaa luuqadaha waaweynka internationalka ayaa lagu bartaa dhismahan. meelahan waa meelaha ardayda oo iska fadhiistaan ee jawiga ku qaataan marka la soo fasaxo kale. masaajidkaas ayaa idin soo tusi doonaa guys. masaajidkaas waa masaajidka jaamacadda uu ku yaalo. inta ayaa loo soo maraa kadib masaajidka qaybtaas minaaradda qaybta ku taalo waa qaybka ay ragga ku tukadaan. qaybtan kala geeskan waa qaybta dumarka ay ku tukadaan. baarkin aad u qurux badan ayuu leeyahay. wax yar ayaan kusoo wareegaynaa guys. marka sida ujeediin bada baarkinka masaajidka ku agyaala ayaan ku dhex socnaa. runtii meel walba oo jaamacadda ka mid ah hadday masaajid tahay, hadday meel faculty lagu barta ay tahay, hadday meesha tuumarka tahay, meel walba waxay leedahay baarkin aad u qurux badan. hadda masaajidka ayaa geesihiisa ayaa baarkinkan uu ka samaysan yahay ama laga dhisay oo kale. meeshaan biyo aad u badan ayaa meeshaan badbadoo kale u eg tahay, laakiin bad ma ahan. magac saxda ee loo yaqaanin waa ilaaway. meeshaan badna ma ahan, magaceed lahaan jirta waa ilaaw. war maa la dhihi jiray waa ilaaw. runtii guys haddaad taqaaniin commentiga igu soo qora bal meel saan oo kale biyo u fadhiyo wax loogu waco. baaskiilkayga kaas iminka ayaan bixi doonaa. xiisadda ayaan ka gaaraynaa. meeshaan fiiriye bal odayaal xataa way fadhiyaan lamaana ah oo romantic jilhaayo. guys xiisaddiina ka daahna ma rabno. let's go. xiisaddiina ayaa aadi doonaa. break waa inoo dhammaaday. galaaskii markaa kusoo laabtay weli xiisadda ma bilaabanin, balse waxaan arkay arday Afrikaan ah oo bushcab isku faanayso. bushcab isku faanayeen, bushcab ku tartamayeen. hadda xiisaddu ay bilaabatay. xiisaddu ay noo soo dhamaatay guys. kadib markay xiisad soo dhamaatay salaada iska soo bixiyay. masaajidkan ma ahan masaajidka data idin soo tusayay, waa masaajidka oo meesha luuqada lagu barta dhexdeeda ku yaalo. kadib waa soo baxnay. gaas runta kuleel aad u weyn ayaa jiro. mid marwaxad ayaa wadataa, kuwa kale bog ayay isku bibinaayeen, kuwa kale gacmahooda isku bibinaayeen. kuleel aad u weyn ayaa jiro runtii. iminka waan soo baxay guys. dhismahan oo kale waa dhismo aad u weyn oo 4 gees leh, macnaha 4 gees oo kale ayuu ka kooban yahay. macnaha qaybtana ujeedin 3 qayb oo kale ay jirto oo in lagu soo wareegsado ay tahay oo isla saan u dhisan. waa dhismo weyn oo dhowr faculty lagu barto. hadda toos ayaan u socdaa. baaskiilka ayaan iska celinayaa, meeshaan ka soo qaataa geynayaa. kadibna toos xaafadeeda ayaan aadi doonaa guys insha Allah. waa soo baxay guys. hadda xaafadeeda waa ku dhowahay. qoraxda aad ayay u kulushaa wallahi. dadkan wadamadan qoraxdoodana aad ayay u kulushahay. marka xilliyada qabow la soo gaarin aad ayuu qabow daran yahay. meel loo raaco ma lahan. hadda waxaa imaaday markaas mid ka mid ah supermarketyada xaafadeena u dhow. waxaan ka soo qaatay dooro. kadib guys sida ujeediinbo dooradeeda iyo xabad dulsheer ayaa iska soo gatay. xaafadeeda ayaan ku dhowahay. iyashan way dhibeen horta wallahi. markaa cusubaa bismillah hadda asal qabsan. xaafadana waa tanaa. hadda ayaan imaaday. labadaas dhismo iga dambeyso waa yuurtooyin oo dowlad ah. isla labadaas dhismo kala gees ku yaala meesha cafe shop ku dhigan waa isla iyaga leh qaybahooda kala duwan. marka guys muuqaalkeena intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaynu balanaa muuqaalkan muuqaalka xiga. fadlan muuqaalka haddii aad ka heshay like saar. haddii aad fikrad noo haysid inaan muuqaalo soo sameyn, waxa aad fikrad ama xiiseynaysid qaybta commentiga noogu soo qor.